xildhibaan maxamed xirsi axmed oo loo yaqaano maxamed caase oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Burco oo telefishinka saab ugu waramayay magaalada Burco ayaa ka hadlay 2 shil oo 48 saacadood u dambeeyay ka dhacay magaalada Burco kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kala duwan waxaana xildhibaanku ka hadlay waxyaabaha ugu waaweyn ee sababtoo ah inay soo noqnoqdaan shilalkani. waa maxamed xirsi xildhibaan golaha deegaanka degmada Burco waxaan joognaa dhakhtarkii weynaa ee Burco ay ka dhaceen shilal kala dambeeyay ilaa habeen hore dadka ku dhintay shilalkaas ilaa hadda 7 qof ay marayaan dhaawac 5 buu ahaa maantana waxa weeyaan 4 kale oo iyaguna dhaawac halis qaba dhibta waxa keenay gaadiidkuna runtii marka runta laga hadlo gaadiidku sidoo magaalada u yahay laba qaybood labadaba uu ka liitaa waa marka hore farsamo ahaan dadka gaadiidka wata dad gaadiidkii aqoon u leh gaadiidkii maaha yani imtixaan u soo maray oo yani garanayaba sida marka loo eego gawadhida loo kaxeeyo waa marka labaad sharci iyo cid uu ka baqayo iyo qofka bini'aadamka cid uu ka baqayo ma jirto qadarta ilaahay waa halkeeda laakiin anigu waxaan arkaynaa dayac badan inuu jiro runtii anigu waxaan ahay dadka inta badan ku baraarugsan ee fahamsan intii aan ku soo guriyo noqday wadanka in gaadiidku dhib ku hayo magaalada isu socodkii magaalada iyo dadkii soconayay waxay noqonaysaa inaan kaashanno hay'adaha ay khusayso oo ciidamada booliisku ay ka mid yihiin oo ilaa iyo maarata taliyaha booliiska ee sare ee qaranka uu ka mid yahay dadku waxay u arkeen wax caadi ah inuu maalin walba gaadhay dadku dhintaan oo qadar ilaahay waa runta laakiin dayac badan oo aqoon la'aan iyo xushmad la'aan nafta laftiga si duqsiga la iska aasanayo oo mataqaana maalin walba mataqaana in aan garanay gaadhiga ku baabinayo gaadhiga hore habeen hore dhacay 12 qof ayaa saarnaa gaadhigan waxa laga yaabaa 5 qof lagu talagalay halka waxaad ka garan kartaa in meesha cilad timi garan maayo gaadhiga socday iyo wixii laakiin marka hore waxa laga garan karaa inta qof la socotay inaanay sax ahayn dhalinyaradu inay markay israacayaan laftigeeda la kontrolo waxa maanta dhacday in ay tig iyo gaadhi weyn isgalay garan maayo dambiga cid leh oo kuma dambaabi karo laakiin waxaan hadana ogahay sida ay u socdaan gabigooduba tigu magaalada iyadoo gaadiidkoo dhimay ay waalan yihiin hadana tigu inay ugu sii daran yihiin baan ogahay waxa iman doonta inaan sharci lagu soo rogo tigaha iyo gaadiidka shaqeeya ee public transport ka ee dadka gura ama basas iyaal qaadaha ahaadaan ama tigaha ahaadaan ama tagaasi ahaadaan intuba fawdo iyo orod iyo surcad iyo meeshii la raba yani aan parking ba u baxayn wadadii oo aanay cidii kala hayd aanay siinaynin nin walba sidoo mataqaana xawaaro rabo uu ku kaxaynayo waxay koobsatay ay kaysatay in sad duqsiga dadku dhintaan dadku kala degan hadaan nahay waa ku talagaleynaa inaan magaaladan maamullo oo waliba gaadiidkeeda maamullo sida ay u kala soconayaan maamullo dadii qofka sharci aan u lahayn oo aanu sharci qabanayn tasala ay soo doonaysa ka dhaqmaya marka sharciya qaban doona tigaha laftigooda waxaan oo aan ku daali doona in iyaga laftigooda seminar la siiyo in ay shaqada way ku yar tahay iyaga laftigooda qayb maalin la soo shaqo galiyo waxaan imika u tacsiyadeynaya afkoodii ku hadlaya golaha deegaanka dadkii ay wax gaadheen iyo ehelkoodii aan la ilaahay nooga boogadhayo ilaa habeen hore 7 qof baa inaga dhintay wallahi 7 qof walba ka naxsa gurigiisa jooga waxaan idin samayn doonaa link aad ka hadashaan ama call center waxa la yiraahdo ama telephone aad ku soo hadashaan ninka si xun u soconaya ee baabiinaya ee dadka halista gelinaya inaad soo ashkateysaan waa in meel uga soo wada jeesano. dhanka kale xildhibaan maxamed caasi ayaa sheegay in ciidamada traafikada ee gobolka Togdheer aanay u shaqaynaynin sidii la rabay waa sida uu hadalka u dhigay waxaan halkan kala hadlayaa markan taliyaha booliiska ee qaranka iyo kan qaybta labadaba in san wax laga bedelo waayo ciidan trafik oo shaqaynaya been ka sheegi maayo ciidan trafik oo shaqaynaya ma hayno ciidanka trafikka shaqaynayana dawladda hoose ma hoos yimaadee laakiin imika waxaan ku talagali doonaa haddii ay iskaashan kar weyno inaan anagu ciidan trafik iyaga ka tirsan aanu gaar u tababarano ay mataqaana shaqo culus qabsadaan dadana magaalada ay dib ugu noqoto sida caadiga ahayd ay u kala gooshaysay haddii kale waxay noqonaysaa in maalin walba 7 qof ama 8 qof ama mataqaana maalin walba meyd la keeno wasaaradda gaadiidka iyo booliiska iyo cid ay khusayso ummadda laga soo gaadho gaadiidkan khaldan sida khaldan u soconaya ilaahay qadartiisa waa jirtaa waa la ogyahay laakiin in qadarta ku marsotaan inta wada khaldantaana baabaysaan ummadda ummadan cid maamushay u baahan yihiin halkaas aad ka arkaysaa imika halkii laga geliyay dhakhtarkii weynaa kontonkii gaadhaba dhinac taageen haddii safar la gelin lahaa ninba ninka ka horreeyinba shaqada qaadan lahaa baleeg adeeg ilaahay marka laga yimaado waxaanu safgarayn kari lahay adduunyada waxay ku xisaabtamaan zero vision oo inaanuna cidi nagaga dhiman shilal ayaa lagu xisaabtama iyagu wadka ma celin karaan laakiin waxay ka xisaabtamayaan in qofkii la adkeeyo lagu adkeeyo sharciga marka qofka lagu adkeeyo xishoodanaya uu baqaya kalba uu leeyahay qofku qal xishoodan male shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab Burco.